waxaan bogaadinayaa soo dhaweynayaa dhiirigelinayaa ilaahayna uga baryaa inuu guuleeyo bankan wadaag baan madaxdiisa iyo saamilaydiisa iyo inta fikraddu ka soo maaxday iyo inta dadaalkan isku raacday dhammaantoodba waa mahadinaynaa waana soo dhaweynaynaa waxaanan ilaahay uga rajaynayn inuu ku guuleeyo tacabka iyo dadaalka waa mid loo baahnaa waa mid buuxinaya kaalin bulshadu ay u baahan tahay wadaag baan iyo ganacsatada kale kala duwan waxay isu taagayaan inay qarankan iyo bulshadan faqiirka ah ama saboolka ah ay kaalintiisii dhaqaale ka qayb qaataan waa arrin aad iyo aad u muhiima bulsho sabool ah oo hadday madaxweynaha tahay iyo hadday tahay ka ganacsada ah iyo mid kastoo mas-uula bulsho baahan oo sabool ah ayaynu u nahay hormuud iyo ganacsato iyo madax iyo madaxweyne duruufta noocaasa ayaa ama hadday tahay baankan ku soo biiray ama intii hore dadaalaysay ay mas-uuliyaddeeda qaadayaan oo looga baahan yahay inay kaalin laxaadle ka qaataan dhaqaaluhuna waa halbowle waa waxa nolosha ku dhisan tahay duruuftaa dadka Somaliland iyo deegaankan inagu xirxiran geeska guud ahaanba ka jirta aynaan gaarka u ahayn ayaa runtii aan aad iyo aad u bogaadinaya inuu baanku ku soo biiray una arkaa inay muhiim tahay baananku aslan dhaqaalaha halbowle u yihiin iyadoo marka horeba ganacsigu guud ahaan uu qayb ka qaato horumarkii dhaqaalaha baan waxaan filayaa kelmadda in laga keenay talyaani oo ay tahay taawla ama table asalka baanku waa table miis inuu miis dhigto oo qofna lacag ka qaado qof kalena siiyo maalgelin isagu qabto cidna maalgeliyo waxaanay dhaqaalaha u baananku u yihiin waa saldhiggii dhaqaalaha isku xidhayay waa saldhiggii horumarka marka dhaqaalaha laga hadlayo waxa isku xidha ama ha noqdo macro ama microeconomy kii doonaba ha noqdee ka yaryar iyo ka waaweyn waxa isku xidha waa baananka waxa dalka dhaqaalihiisa iyo dalalka kale isku xidha waa baananka waxa dalka gudihiisa isku xidha dhaqaalaha ee kala socodsiiya ee circulation ka wareejiya waa baananka marka aad iyo aad buu muhiim u yahay baankanu iyo baananka kaleba aad iyo aad bay muhiim u yihiin waxaase runtii isweydiin leh oo aan doonayaa inaan calaamadiyo maadaamaynu nirub wax laga keenay bank waa ninkaa miiska dhigtay ee dadka lacagta ka guray ee maalgelinta uga guray ee dad kalena maalgeliyey waxa laga sugayaa mas-uuliyaddii qofka yacni mas-uuliyaddaa qabanaya koobaad ee maalkan uu ku ilaalin lahaa ee ku horumarin lahaa xukuumaddana waxaa laga sugayaayo la inooga baahan yahay madaxweynaha iyo wasaaradaha ku shaqa leh iyo baanka iyo inta ku shaqa leh shuruucdii ilaalin lahayd iyo hanaankii maaliyadeed ee damaanad qaadi lahaa dadka xoolahooda u damaanad qaadi lahaa qoladana fursad siin lahaa ay ku shaqeeyaan oo talentkooda ku tijaabiyaan oo dhaqaalahooda ay u hureen ku tijaabiyaan marka waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa baankan dhaqaalahana muhiimaddaasuu ka leeyahay waxaa muuqata awooddeena dhaqaale aad ka waliidata in wakhtigan xaadirkaa aynu u baahannahay sidii ay isu garabsan lahaayeen dhaqaalaha gaarka loo leeyahay privateka iyo ka dowladdu si dhaqaaluhu taayirkiisu u wareego waa xaqiiqo jirta in dhaqaaluhu hooseeyo oo suuqyada iyo duruufaha ka jira qofkii u warhaya ama u kuur galay
ama arkay duruufo adag baa ka jira wadciga noocaasa ayaynu doonaynaa runtii inaynu wax ka bedelo aan ku dhiirigelinayaa xukuumadduna inay dhiirigeliso ganacsatada gacan qabato intensiveka waxa la yidhaahdo aan laga maarmin wax liya wixii suurto gelinaya inuu dhiirigeliyo ama horumariyo ama waxa weeye caqabadaha ka hor qaado marka dhaqaalaha laga hadlayo waxyaalaha aasaaska u ah marka laga tago free marketka waa free movementka yacni inay dadku iyo dhaqaaluhu wareegoodu uu helo fursad helo marka aad iyo aad baan runtii ugu dardaarayaa in loo fududeeyo oo ay helaan fursadda dhaqaaluhu haddii dadkeennu sidan ku sii jiraan walaa dawlad baan tamarinayn walaa dhaqaalaan waxba tarayn walaa nin ganacsada aan waxba iibin karayn yacni awoodda dhaqaalaa lagu tamariyaa dawladdu ku tamarisaa oo dalku ku horumaraa oo shaqo ku helaa oo dhaqaaluhu ku horumaraa dhaqankeenna markaa dib u eegto laba gabayaayo caanahoo reer burcaaha oo dhaqaalaha tilmaamayay oo midna faarax laanjeer ahaayo uu tilmaamayay laxaad iyo adduun ayaa wixii laalma soo roga haddaan la helin dhaqaale wax ma kala socdaa midna uu cabdilaahi muuse ahaa oo isaguna uu tilmaamayo inkastuu dhabcaa la guudhan yahay oo dharaba kuu diido dhan aad uga dhacdaba maal ku xiga waa dhadhamisaaye waa dhaawac kugu yaal xigtada oo dhaqashadiida bulshadaadoo waxba dhaqan weyda waa dhaawac kugu yaal carabtuna waxay tiraahdaa faaqidu shay laa yucti qofka baahani faqiirka waxba ma bixiyo waaba faqiir faaqidu shay laa yucti nin baahani wax ma bixiyo duruuftaasaynu madax u nahay oo ganacsato u nahay oo ku dul nool nahay oo u baahan runtii inaynu halkaa ka qaadno oo aynu leenahay si ay taas u suurto gasho waxba tari mayso calaacalku ama sida madaxda had iyo jeeraale iminka ay u badan yihiin in bulshadaba la canaanto waxba tari mayso waxaa laynooga baahan yahay halabuurkeedii shaqadeedii dadaalkeedii isgarabsigeedii waxay tilmaameen laba ninoo caan ah oo maraykani waxay tilmaameen dhaqaaluhu oo ku qaatay waxa la yidhaahdo ku qaatay maraykan ku qaatay dhaqaale waxa la yidhaahdo Nobel Peace Prize ku qaatay waxay tilmaameen dhaqaalu wuxuu ku xidhan yahay siyaasadda u saldhiga dhaqaalaha siyaasaddu ma kala maarmaya siyaasadda ayaa saamaxda duruufta siyaasadeed baa saamaxda dhaqaalaha socodkiisa iyo horumarkiisa weydika arko haddii caawa wax isbedelaan suuqyada marketka dunida hoos buu dhacaa ama kor buu u kacaa erey buu ama duruuf timi ama erey buu kor ugu kacaa ama hoos ugu dhacaa marka waa arrin jirta oo aan idhaa laga qarsan karin sidii aynu dhaqaalaheenna dhulka uga soo qaadi lahayn madaxweynaha xilka koowaad baa saaran laakiinse keli kuma aha waxaan aad iyo aad u dardaarayaa ganacsatada haddii aanay xoolaha u hurin halkan baan shalayta ka lahaa waan ku celinaya madaxda ama political leaderska iyo ganacsatadu waxay ka siman yihiin caqabadaha nolosha iyo caqabadaha dawladeed haddaan madaxdoodu horkicin oo jiidhin oo kaymaha bannayn ma bannaanaadaan haddaan ganacsatadoodu xoolaha hurin oo u quudhin oo maalgelin oo u hurin oo ku dadaalin oo ku khamaarin dalku ma horumaro dadku wax ma noqdo marka waxaan leeyahay ganacsatada anigoo bogaadinaya ganacsatada inta badan soo waday dalka halka soo gaadhsiiyey waan aad iyo aad u bogaadinayo hudheelkeennanu ka mid yahay cabdikariin maxamed iid allahu barakeeyo inuu maalgeliyey hudheelka isagoo aan wixii uga soo bixi lahaa eegin inuu maalgeliyo oo ay mandarka iyo sharaf u tahay dalkeenna inay la maalgeliyo hudheel noocan oo kale ah iyo dhammaan ganacsatada kala duwan ee maalgelisay ee duruufaha adag la soo martay weliba waxaanuun ugu dambaysiinayaa madaxweynaha saaxiibka inaan dardaaro oo idhaahdo ganacsatada iyadoo intaa jirtaaba aan soo sheegay ay jirto aad waxa u muhiima kala xadayntii ganacsigu inay jirto oo aan ka weyne ka yar ku joogsan waana duruuf maanta suuqa taal afka soomaaligana wax maamaabaa jirta
il ribix arkaysaa rixi ma eegto il ribix arkaysaa rixi ma eegto il macaash arkaysaa kanaa ku xigay kanaa rixi ma eegto macaash kuma weeriyanaya haddaan waana wax dawladnimada loo sameeyey haddaan dawladnimadu ka qaban oo kala xadidin waa isjiiraya adigoo madaxweyne aan huba inaad ku baraarugsan tahay horena u ballan qaaday waxaan kugu baraarujinayaa in arintaasu aad iyo aad muhiim u tahay ganacsiga iyo kala xadayntiisii oo aanay isjiidhin oo duruufaha jira ee ka jira suuqa sidii loo kala ilaalin lahaa falogaad la qabto iyadoo la soo kicinayo kuwa la dhiirigelinayo mid yar iyo mid weynba haddana in iyaga dhexdoodii iyo ganacsiga iyo sidii loo kala xadidi lahaa awoodooda loo kala xadidi lahaa yaanay isu jiidheen la sameeyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu